guud ahaan dunidu waxay la daaladhacaysaa waxyeelada cudurka safmarka ee COVID-19 halka qaaradda Afrika uu u heliyo culayska cudurkani masiibo kale oo aad u adag. ayax duulaan ah qaaradda ayaa wajahaysa xaalad cunno yaraan ah ayaxa ayaana xaalufinaya dalagii beeraha. hawada bariga Afrika ayaa xambaarsan laba masiibo oo waxyeelo badan leh ayayaan fara badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo 50 bilyan oo ayaxa iyo cudurka safmarka ee coronavirus. sida COVID-19 uu u waxyeelaynayo nolosha dadka, ayaxu waxa uu waxyeelo ku yahay dadka xoolahooda iyo cuntadoodaba. ayaxu dhibaato ayuu nagu hayaa, waxa uu cunayaa beeraheena iyo cawskii xoolaha, xataa guryihii ayuu ku xarooday. goorta aan qalanno xoolaha uurku jirta gudaheeda waa wada madaxyo badan oo ayaxa. shaki la'aan waxaa saameyn xoog leh ku hayaa caafimaadkeena, caafimaadka xoolaheena, badeeco waxaan haysanno iyo guud ahaan gobol. bishii Febraayo waa markii ugu horeysay oo 8 wadan oo Afrikaan ah uu ayaxu ku habsado 70kii sano ee la soo dhaafay. waa markii ugu badnayd ee Afrika cayayaankani ay isku waasiciyaan baaxad intaa leeg. ayaxan ayaa u socda mawjadaha cusub ee iminka imaanaya ayaa ka badan kuwii hore 20 jibaar. Keith Chrisman waa sargaal sare oo Afrika u qaabilsan ururada wadaraso cunnada iyo faydhowrka deegaanka. ma aha wax lala yaabo in la arko mawjad anyaxa oo baaxad ahaan la eg xaafadda Manhattan ee New York. waxay noqon karaan wax aad u badan. anyaxa ayaa cuni kara maalin qura in la eg cunnada laga cuno New York iyo California oo la isku daray. gobolka oo markii horeba la halgamayay cunno yaraan, in ka badan 35 milyan oo qof ayaa iminka halis ugu jirta xaalad cunno la'aan ah. xaaladdaas ayaa dalbanaysa gargaar cunno oo degdeg ah. deegaanadan si aad ah ayay ugu nugul yihiin macluul. waxa ay wajaheen xaalad abaar iyo biyo la'aan ah 3 sano ee la soo dhaafay. sanadkanna waxaa haleelay roobab xooggan iyo daad badan, marka waxayba ku jiraan xaalad halis ah. bulshada deegaanka gobolka ayaa dadaal ugu jira la dagaalanka ayaxa. arrintaas waxaa ka caawinaya hay'adaha ka shaqeeya gobolka. hay'adda FAO ayaa codsanaysa lacag malaayiin dollar ah si ay ugu caawiso deegaanadan ayaxu xaalifinta ku hayo agab lagu buufiyo cayayaankan, balse xuduudaha u xiran cudurka COVID-19 daraadiis ayaa hakiyey dadaaladii caawinta oo dhan. dadka ayaa isku dayaya inay la dagaalamaan cayayaankan, balse dadaalkooda ayaa alaaba ku dhammaada natiijo la'aan. isku imaadkoodana waa mid sababi kara isu gudbinta iyo faafinta cudurka COVID-19 oo halis labaad ah. hay'adda UN ayaa ku qancinaysa dadka inaysan isu iman oo isticmaalaan qalab meel fog lagaga buufin karo iyo sunta cayayaanka. xilligan lagu guda jiro cudurka coronaviruska ayaa la xadiday dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii dadka. si kastaba, hay'adda UN ayaa kala shaqaynaysa dowladaha gobolka sidii ay ugu dabci lahaayeen xayradaha socodka ee dadka la dagaalaya cayayaanka. dowladuhu waxa ay ogaadeen in cudurkan COVID-19 iyo xaalufinta ayaxu uu ku hayo qaaradda Afrika labaduba ay khatar ku yihiin gobolka. sidaas daraaddeed, isu socodka ayay u fasaxayaan dadka ka shaqaynaya ololaha la dagaalanka cayayaankan, waxayna u tixgelinayaan arrintaasi inay tahay adeeg muhiim ah. dhibaatadan ayaxa ayaa asal ahaan ka timid jasiiradaha Carabta. waxaa kale oo ay ka dhasheen roobab mahiigaan ah oo ka da'ay gobolka. sidoo kale, isbeddelka cimilada ayaa qayb ka ahaan kara, taasoo dhibaatadan ka dhigaysa tii ugu xumayd. sanadkii ina dhaafay ee 2019 gobolkan waxaa ka dhacay ilaa 8 duufaanood. marka arrintaas aad u eegto si dhow, waxaad dareemaysaa in isbeddelka cimilada ay tahay wax jiro. siday tahayba, haddii dhibaatadan ay sii socoto, waxyeelada anyaxa iyo halista cunno la'aanta ah waa ay sii soconayaan. waa Maxamed Xasan Xaashi, waxaadna kala socoteen Somali American Media, Minnesota.